السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن أيها ربسي نيوز طاول كسر دوادا وركي حلقنا ربسي نيوز قد بدأ كسر قان دونا وحكمدا diblomaasiyiinta dunida oo ka digay in wasiirka arrimaha dibadda Djibouti oo ka soo horjeeda qadiyadda Somaliland loo doorto gudoomiyaha guddiga fulinta ee ururka midowga Afrika. Dalka Tanzania 60 qof ayaa ku dhintay daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah oo toddobaadkii u dambeeyay halkaasi ka daayay. Dagaalka sokeeye dalka Suudaan waxaa maanta u buuxsamay hal sano. daawada qodobbaas waxaa ka mid ah wararkayga xilligana ku soo dhawaada kuwaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Horraanta sanadka dambe 2025 waxaa la qabanayaa doorashada gudoomiyaha cusub ee guddiga fulinta ee ururka midowga Afrika, xilkaasi oo leh saameyn siyaasadeed oo weyn. Kursigaasi waxaa ilaa hadda shaaciyay inay u tartamayaan dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo Djibouti, kuwaas oo soo xulay xubnaha ugu tartamaya. Dowladda Kenya ayaa waxaa kursigaasi ugu tartamaya hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Raila Odinga oo saaxiib la Jamhuuriyadda Somaliland. Soomaaliya ayaa iyadana waxa u sharaxan Foosiis Xaaji Aadan oo mar noqotay ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya. Halka dowladda Djiboutina ay kursigaasi soo sharaxday wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf. Laakiin diblomaasiyiinta isha ku haya arrintaasi ayaa ka digay in Maxamuud Cali Yuusuf oo Djibouti matalaya uu xilkaasi haweysto, iyagoo ku eedeeyay inay sumcadiisa siyaasadeed gaadheen dhaawacyo sababaya inaanu kursigaasi u qalmin. diblomaasiyiinta oo xiganaya dhacdooyin siyaasadeed Maxamuud Cali Yuusuf uu ku lug lahaa, sida inuu ka soo horjeedo Somaliland oo hore midowga Afrika ugu taliyay ilaa aqoonsado, iyo inuu ka soo horjeedo heshiiska ay dhowaan la gashay dowladda federaalka Itoobiya, waxayna soo jeediyeen 3 sababood oo keenaya inaan Maxamuud Cali Yuusuf loo dooran gudoomiyaha guddiga fulinta ee ururka midowga Afrika. Qodobadaasi oo kala ah: 1. Masharaxnimada Maxamuud Cali Yuusuf waxay khatar ku tahay aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland. Arrintan oo loo eegayo daraasad gaar ah oo ururka midowga Afrika sameeyay sanadkii 2005, taasoo uu ku amaanay kuna sheegay inay Somaliland mudan tahay aqoonsi caalami ah. Wasiirka khaarijiga dowladda Djibouti waxa uu eed u jeediyay dowladda Itoobiya, isagoo ku sababeeyay inay ka soo horjeedo Soomaaliya, isagoo ku andacoonaya inay ka soo horjeedo Soomaaliya oo ay xilligan xasilooni darro ka jirto, Somalilandna ay u baalmartay. Doodani waa hal abuur cas oo ay ku daba jiraan dadka diidaya inay qiraan guulaha Somaliland ka gaadhay dimuqraadiyadda, dhismaha dowladnimada iyo hay'adaha xooggan ee dowladnimada, kuwaas oo ah kuwa dhif iyo naadir ku ah Geeska Afrika iyo Afrikada Saxaraha ka hooseysa. Sababta labaad, taageerada uu Maxamuud Cali Yuusuf ku taageeray Cabdullaahi Yuusuf oo mar xukumaya Soomaaliya, taageeradaasi oo ku salaysnayd inuu aaminsan yahay in SNM oo Somaliland xoreysay ay hore u burburisay Soomaaliya, taasoo uu islahaa waa la soo celin karaa. Laakiin muddadaasi Cabdullaahi Yuusuf wuxuu hogaaminayay jabhaddii SSDF ee Siyaad Barre ka soo horjeeday, walow markii dambe la laaluushay si ay uga tanaasulaan dadaalkoodii isbadaldoonka ahaa. Markaasi waxaa u baahan in la baadho diidmada Maxamuud Cali Yuusuf ee xasuuqii Siyaad Barre u geystay shacabka Somaliland. Sababta saddexaad, Maxamuud Cali Yuusuf waxa uu taageersan yahay Xuutiyiinta Yemen oo dhibaato u geysta ganacsiga Afrika. Tusaale ahaan, madal siyaasadeed oo uu soo qabanqaabiyey Maxadka Heritage oo Djibouti lagu qabtay sanadkii hore 2023, Maxamuud Cali Yuusuf waxa uu ka yidhi: Allaha barakeeyo Xuutiyiinta, ma doonayno inaanu ka mid noqonno isbahaysiga Maraykanka ee la dagaalamaya. Weeraradu waxay u baahan yihiin inay joojiyaan maadaama ay dhaqaalaha yaga wax u dhimayaan, laakiin waxaan la wadaagaynaa dareen la mid ah Xuutiyiinta. Hadalkan ma aha oo keliya mid la yaab leh, balse sidoo kale waa mid laga naxo, iyadoo muujinaysa in wasiir Maxamuud Cali Yuusuf uu taageersan yahay Xuutiyiinta oo weerar ku ah maraakiibta ganacsi ee mara badda cas, taasoo aakhirka saameyn ku yeelanaysa ganacsiga Afrika ee Khaliijka iyo dalalka midowga Yurub. Muddo 20 sano ah, wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf waxa uu ku talinayay siyaasado lid ku ah Somaliland oo dib u dhigaya horumarkeeda ilaa inta ay Soomaaliya cageeda isku taagayso, taasi oo ah istiraatiijiyad la doonayo in midow dambe lagu khasbo Somaliland. laga soo bilaabo u doodista xayiraadda xoolaha ee Sacuudigu ku xanibayo kobaca dhaqaalaha
in la hor istaago qorshayaasha Itoobiya lagu horumarinayo xudunta dhoofinta shidaalka ee dekedda Berbera Somaliland iyo in la wiiqo dimuqraadiyadda Somaliland oo uu ku dilacsiinayo siyaasiyiin sita baasaboorka Jabuuti. Marka waa in la isweydiiyaa tallaabada uu qaaday waxa ka dhalanaya. Midowga Afrika wuxuu u baahan yahay hogaamiyayaal dhiirigeliya isdhexgalka dhaqaalaha halka ay ka ahaan lahaayeen kuwa faafiya fikrado kala qaybin iyo gumaysi ku salaysan. Waxa ugu dambeeya ee Midowga Afrika u baahan yahay waa inuu ka hortagaa siyaasi Maxamuud Cali Yuusuf oo kale kaas oo hor istaaga heshiisyada suurtagalka ah sida safgaradka Itoobiya iyo Somaliland oo ahaa qorshe lagu xoreynayo dhaqaale ahaan ku dhowaad 120 milyan oo qof, taasoo 7 jeer ka saameyn badan qorshihii Marshall Plan ee Mareykanka ee 17 milyan ee reer Yurub. Sanad ayaa maanta u buuxsamay markii uu bilowday gulufka colaadeed ee ka aloosan dalka Suudaan kaasi oo u dhexeeya militariga dowladda iyo xoogga hubeysan ee RSF. Xalay oo kale bartamihii bishii Abriil ee sanadkii 2023 ayuu qarxay dagaalka sokeeye ee uu dhiigga badani ku daatay. Tan iyo markaasi 100 qof ayaa ku dhintay, 100 kun oo qof oo kalena waa ay ku barakaceen ama waxa ay u qaxeen dalka dibaddiisa. Dagaalka sokeeye Suudaan ayaa keenay dhibaato ba'an iyadoo ay qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahiba ay ka digeen macaluul ay suurtagal tahay in dad aad u tiro badan u dhintaan bilaha soo socda. Isuduwaha xafiiska arrimaha bini'aadantinimada qaramada midoobay Justin Brady ayaa sheegay in bilaha fudud ee nagu soo haya ay dhici karto in dalka Suudaan ay macaluul iyo gaajo ugu dhintaan 10 ama 100 kun oo qof haddii ayna bulshada caalamku si degdeg ah ugu gurman Suudaan. Ilaa 3.5 milyan oo carruur ah oo ay da'doodu ka hooseyso 5 jir ayaa la ildaran nafaqa darro aad u xun. Waxaa ku jira carruur gaadhaya 710 kun oo xaalkoodu uu halis yahay sida ay xaqiijisay laanta caafimaadka qaramada midoobay ee WHO. Qaramada midoobay waxa kale oo ay sheegtay in dad gaadhaya 5 milyan oo ruux oo ku nool Suudaan ay hal tallaabo oo kaliya u jiraan inay galaan macaluul. Laakiin guud ahaan warbixinta ayaa sheegaysa in ku dhowaad 18 milyan oo reer Suudaan ah ay cunto la'aan yihiin. Ku dhowaad 60 qof ayaa ku dhintay tan iyo bilowgii bishan Abriil roobab mahiigaan ah iyo daadad soo rogmaday oo ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah dalka Tanzania sida ay dowladda dalkaasi sheegtay. Daadadka ayaa waxyeello weyn gaadhsiiyey kumanaan beero ah oo ku yaala dalkaasi. Mobhare Metanye oo ah afhayeenka dowladda ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay. Saameyn halis ah ayaa ka dhacday gobolka xeebta ah halkaasi oo 11 qof ay ku dhinteen ayuu hadalkiisa raaciyay afhayeenku. Wuxuu sheegay ilaa hadda 58 dhimasho ah ayaa laga diiwaan geliyay dalka oo dhan. Jimcihii la soo dhaafay 8 carruur ah ayaa dhintay kadib markii bas iskuul oo ay saarnaayeen uu ku dhacay tog uu daad xooggan ka rogmanayay kaasi oo ku yaala waqooyiga dalka Tanzania. Abriil waxay calaamad u tahay xilli roobaadka dalka Tanzania. Sanadkan waxa dahay roobkii ugu badnaa marka loo eego sanadihii la soo dhaafay. Dhacdada cimilada El Niño ayaa uga sii dartay roobab xilliyeedka sanadkan sida ay khubarada cimiladu sheegayaan. Daawada qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararka xilligan Arabsiya News. Intayna wararka war la mid kulmi doona nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.